dadka badhbaa u haysto moodaya dowladaha waaweynay inaynu degno inay rabaan in dagaalku inaga dhammaado inay rabaan in caynkan ma jirto waxay u socdaan inaad weligaa degin dee innaga waddankeenna waxaa lagu maamulaa maxay albandi saabic bandiga toddobaad ee united nationska xeerkiisa bandu saabic macnihiisu waa maxay waa qofku isma maamuli karee hal la maamulo qofku isma maamuli karee ilmaha yara carruurta aabihii markuu dhinto maxaa la yidhaahdaa xoolihiisa ma maamulan karee wuxuu u baahan yahay maxay wasiy cid maamusha oo meel gaadhsiisa bandiga kani wuxuu qorayaa waa intaa askar ma yeelan karaan oo istilayaani qoryo ayaan laga iibinin dowladnimada xeebtooda ma ilaashan karaan cid kale ha u ilaaliso wax kasta soo qabo waxa ma samayn kartid ilaa iyo ogolaada mooyaane adiga ciidan kale in lagu dul dhigo wax kale waxani ma aha jacayl lagu qabo ee waa destabilization waa inaad ku jirto inaad weligaa soo kicin Soomaaliya meelaha yar nabadu ka jiraan waa meelaha laga yaabo inaan iyaga askartoodu imanin iyo inta iyaga la socota aanay ku badnayn kole kama madhnee ayaa inta nabadu ka jirto qodobka saddexaad ee subversion theory-gu tilmaamaa waxa weeyaan waa waxay dhahaan crisis normalization tatbiic al-azma qofku marka dambe balaayada waa inuu arkaa inay nolosha ka mid tahay halkay Soomaalida la gaarsiiyay weeyaan qofka Soomaaliga in wax badan iba jiraan ma arko maalinta qarax yar dhacaw isdhaa wallahi dhib baa soo korodhay laakiin wuu la qabsaday wuxuu bartay inuu la noolaan karo dhibta dabeetana waxay dhahdaan crisis normalization qofka haddii la gaadhsiiyo dhibta inuu la noolaan karo hadduu gaadho waa halkii lala rabay ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka in badan buu dadkan kaga digay waxaan tilmaamaynaa ma aha wax wada tilmaamayo waa waxay istiraatiijiyad العالم ku dhigaan مثلا waxa jira buug qoray nin Chinese 2500 sanadood ka hor noolaa sanad Zobaa la yiraahdaa oo philosoph general laha buugiisu waa weedho kooban waxaan filayaa 600 iyo dhowr statement oo kooban inuu yahay culimada istiraatiijiyada dunida daraasayso dhan baa loo dhigaa militariga dunida oo dhan baa loo dhigaa waa kalimaad kooban oo ninka kani markaa waa nin philosoph ah fanniga istiraatiijigana looga dambeeyo waxa uu yiraahdaa in ikhdaac al-adow min duuni qitaal huwa arfac imtiyaaz bayda adawga inaad jabiso oo ku hoos yimaado adigoo aan la diririn waa heerka ugu sarreeyay la gaadho buu yiri wal amal al askari huwa aqall turuq jawdatan li ikhdaac al-adow bayda military inaad cid u jabisana waa qaabka ugu hooseeya cadow loo jabiyo buu leeyahay yani inaad ciidan iyo hub iyo dagaal ku jabisa waa qaabka ugu liitaba waa farsamada ugu liidata laakiin farsamada u sarreysa waa maxay inaad ninka jabiso adigoo aan dagaalamin adoon askari kaaga dhiman ama waxba kaaga dhiman inaad jabin karto walidaalka wuxuu tilmaamaa in al-a'zama bayna al-qaada laysa al-muntasir fi 100 ma'raka bal dhalika alladhi la yahtaju itlaqan ila al-qital liyantasir haliyayga ama geesiga weyn hogaamiye ee laga dambeyn kara ma aha buu yiri ninka 100 goobood guuleysta ee waa ninka aan dagaalba u baahan si uu guuleysto ninka aan dagaalku u baahanin si uu guuleysto waxaan qadiyadan u tilmaamayaa marka waxay tahay ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayyuhalladina aamanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad الاعتماد على نفسه هدينو يلن كري وينو oo cid kale inoo dejiso khudadkeen iyo road mapka iyo meeshaynu marayno abid guuleysan maysid waxaad guuleysan kartaa iyo qura markaad adigu awoodaada iyo aqoontaada iyo tamartaada iyo dalkaaga iyo xoolahaaga iyo dhulkaaga waxa ku jira ama kor saaran markaad adigu ku xisaabtanto ee adigu taas aad blangaraysato waad guuleysan kartaa ama cid kale ay wanaajinaysa warka gaalada oo dhan haddaan soo dhaafo ilaahay kitaabka quraanka ee soo degay 1400 sanadood wuxuu inagu leeyahay
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما تجعل رب ليه كوا قال ذا يا أهل الكتاب يا مشركين بس قدر كوا قال ذا ما تجعل أن ينزل عليكم من خير من ربكم حق علينا خير كهشان ما هينا يجو خير كسيان حق الربين خير دين كي ما دام تجعل بإلهي سبحانه وتعالى. إذا مدان جعلين أن حق الرب خير كهشو أيها يسقون دنكيس خير كاسين أيها هدات رميسته واتشبطا وحد كم تهي كويل صوت المامي يجو ملا وقبياقي الصومالية دي شيء بعد ذنين باكولة ديدايا دالنا كابضانه وان دونين إناد هشان داين أبيت كايه دادكونا مودي دول وضرشان وحد حصانين حنين الصومالية دون الصومالية دو كاله تلمامي لكن حقيقة وحوية وقوة كوان بانوعا كانوا فكرية محامر كاين صارن خطة إنه دقى إنه وين بطانات كرر قلبات كأي وحل الصعودة مكبحسن هذا إلهي بوحل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وركوا إيمانك لقاها ليو ورلت لي يا لآن إذنك هين هيالني نبا إلهي لي ويدن لقوين يعني لا يألونكم خبالا ويدن فسهادين ينبر بكوشة مركزاتنا واحد هذا خبير عدا كالصعوطة هداد إيمان سنة خبراء بدل ما ليدين لكن دير كعاد نكمل إذا علماء الصومالية جامعات كرر قلبات كنا رجع شوقي وين كترسان أيه وحيري وحني ما هذه السببة مركز سوا حاجة صهر بحيويري نين باييري عبد حاجة دمنين يجيريان مغلبيوري مركان أجينا وننعت ويمو هذول نكي ويس ورستين نكم حوها مركا كان يونايتد نيشنز كي قيبر دمبو هايستا لكن مركي حقا جوجين جامعات دوحها بدي ولاها بروفيسور هذا وراقه وكلا قاده مركاسان كو يدبو واساد حقا كو هشي انتو ديركاس قبتay buu yiri daaniga awowyaday baa shaqeeyay adiga awowyada baan shaqeeynin buu ku yiri waa ruti yani awowyada baa shaqeeyay yani ma khabiir laini waxa weeye weyn iimaansan weyn ilaahi wuxuu leeyahay waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa waxaad haysato adigoo haysta inaad horumarto ma rabo waxna ma faa'iidin hada diin la'aan waxoogaa dhaqaalaha ku hesho waxba ma faa'iidin إلهي وحينات المام يا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أيها الأحبة هلنا خطي نوبهني لكن وين نقرنا مش أينو دقنا يوحي ربنا إن نقبلنا إن أنا مال بنانا هينا وحي أينو دونه إنت إنو دجنا إنو سعكرنا